isbedelo dhanka kuraasta siyaasadda dalka Mareykanka ayaa ka dhacay gudaha dalkaasi kadib maalmo doorasho oo ay u dareereen qaarkoodna online-ka ay kaga codeynayeen muwaadiniinta u dhalatay dalka Mareykanka. haddaba arrintaasi marka dib loo eego waxaa si gaara isha lagu hayay kursiga ugu sarreeya dalkaasi madaxweyne Donald Trumpna uu si haye ka yahay ayaa waxaa timid in doorashadii la codeeyay ee tirada ugu badan la arkayay inuu ku sarreeyo madaxweynaha la filayo in talada dalkaasi uu la wareego bisha January waa madaxweyne Joe Biden. haddaba Trump ayaa ka soo horjeestay tirinta codadkaasi iyo weliba natiijada horodhaca ah ee laga arkayay mareegaha kala duwan ee gudaha dalkaasi. madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka Joe Biden ayaana sheegay in diidmada Trump uu diiday inuu ogolaado doorashada looga guuleystay ay tahay ceeb ama wax laga xishoodo, balse Biden oo tan iyo shalay xiriir kala duwan la sameeyay hogaamiyaasha caalamka ayaa ku adkeysanaya inaysan jirin wax ka hor istaagi karayo inuu xilka la wareego. dhanka kale madaxweyne Trump ayaa qoraal uu bartiisa Twitter-ka soo dhigay ku sheegay in ugu dambeyntii isaga ay raaci doonto guusha doorashada oo inta badan warbaahinta ay saadaalisay in Trump uu guuldareysan doono. wali si rasmi ah looma xaqiijin natiijada dhammaan codadkii la dhiibtay ee gobolada dalka Mareykanka. waxaa soconaya tirinta codadkii la dhiibtay. natiijada rasmiga ah ee doorashada dalkaasi ayaana la shaacin doonaa kadib marka ergooyinka doorashada ay kulmaan 14 bisha December ee soo socota. madaxweynaha la doortay ayaa la weydiiyay waxa ay la tahay diidmada Trump uu diidan yahay inuu qirto in doorashada uu kaga guuleystay. waxa uu yiri Joe Biden waxay ila tahay un wax ceeb ah oo laga xishoodo waa markaan si dhab u hadlo. waxaana uu intaasi raaciyay in arrintaasi ay dhaawac weyn u geysan doonto taariikhda madaxweynaha talada haya haatan ee Trump. ugu dambeyntii waxa ay soo dhamaan doontaa ayuu yiri Biden marka la gaaro 20 bisha koowaad ee sanadka soo aadan ee Janaayo 2021 taa oo ula jeeday maalinta ay tahay in xilka loo doortay loo dhaariyo Joe Biden. Biden ayaa tan iyo shalay xiriirada uu la sameeyay hogaamiyaasha kala duwan ee caalamka isagoo isku diyaarinaya inuu xilka la wareego sanadka dambe. madaxda uu telefoonka kula hadlay Joe Biden ayaa waxa kamid ah sida warbaahinta ay qoraysay ra'iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson, madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo hogaamiyaha Jarmalka haweeneyda lagu magacaabo Angela Merkel. Biden ayaa sababta uu madaxdaasi ula xiriirayay ku sheegay inay tahay inuu cadeeyo in Mareykanka uu mar kale ku soo laabtay saaxada siyaasadda caalamka. Trump ayaa shalay bartiisa Twitter-ka soo dhigay qoraal uu ku sheegay in ugu dambeyn guusha ay isaga raaci doonto, waxaana uu maalmihii la soo dhaafay sheegay in Biden uu ku guuleysan karo doorashada la musuqmaasuqay oo kaliya, balse marnaba wax cadeyna ma uusan keenin. xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo oo aad ugu dhow Trump ayaa isna shir jaraa'id uu shalay qabtay ku sheegay in la tirtiray dhammaan codadka la dhiibtay, sida awgeedna ay tahay in la isku diyaariyo maamul kale oo hogaaminayo madaxweyne Trump.